السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر عصب aynu maanta ka bixin doono hordhac amba introduction ka bixin doono waa computer science haddaba casharkan computer science inagu halkan kuma sharxi doono oo cashar aynu soo diyaarinay maaha waxaanu ka samayn doonaa casharaanta xanaa computer science-ka inagoo ka hadli doono qaybaha kala duwan ee computer science-ka haddii tahay input unit output unit input waa wixii gudaha outputna waa wixii dibadda iyo storage-yada computerka sidoo kale waxaan ka hadli doonaa waxa la dhaha CPU iyo ALU iyo unit intaana waan ka hadli doonaa waa qaybo ka mid ah oo aynu marka soo qaadanay waxaan kale ka hadli doonaa computer hardware iyo oo noqonaysa motherboard noqonayso BIU noqonayso amba BIOS noqonayso qaybtii BIOS-yadii computerka aynu ka hadli doonaa waxa kale aynu ka hadli doonaa desktop iyo laptop waxay kala yihiin ayaynu kala saari doonaa inagoo casharkan ugu talagalnay qaab introduction ah waxaanu ku kala saari doonaa desktopka muxuu loo isticmaalaa laptopkana maxaa loo isticmaalaa isagoo desktopka laga shaqeeya meelaha kombaniyada iyo goobaha ma garanaysaa iyo shirkadaha ayaa desktopka lagu shaqeeyaa laptopkuna individual amba qofku qaadan karo la aadi karo goobtiisa shaqo gurigiisa la aadi karo wax ku diyaarsan karo uu yahay wax u khaasa computerka uu laptopku yahay qof inuu khaas u noqon karo desktopkana inay shirkad iyo company iyo waxyaabahaas oo dhan ay ku shaqeeyaan sidoo kale waxaanu introduction ka bixi doonaa hard drive wuxuu yahay ayaynu ka bixin doonaa introduction waxa kale aynu introduction ka bixi doonaa central process unit oo qaybo ka mid ah computerka oo aynu casharaanayadana ka soo diyaarin doono waxa kale oo ayagana introduction ka bixin doonaa random access memory muxuu yahay sidoo kale waxaynu ka bixin doonaa hordhac aynu ka hadli doonaa computer science-keena amba casharaanta aynu ka soo diyaarino computer science internal system unit component oo noqonaya qaybta gudaha computerka sidoo kale waxaynu cashar ka samayn doonaa amba casharaanteena computer science-ka aynu kasoo samayn doonaa muxuu yahay external system muxuu yahay ayaynu kasoo samayn doonaa waxa kale aynu kasoo samayn doonaa sidaynu introduction-ka hore u hadalnay input iyo output labada cashar labadaana way ka samayn doonaa waxa kale aan ka samayn doonaa power supply storage-ka waan kasoo hadalnay power supply muxuu yahay power supply waa qaybta computerka inaga oo ku eegi doonaa qaab inagu ma hayno meel computerada amba practical ahaan ma hayno laakiin computerkeenan amba computerka casharaanta ku diyaarino ayaan bal isku dayi doonaa inaynu ku diyaarino power supply iyo haddii motherboardkii iyo internal system unitkii oo had iyo jeer waxaad aragtaan computerada waxaa ku qoran intel computer ay ku qoran tahay ayaa jira core marka intel maxaa tahay sidoo kale waxaanu ka hadli doonaa motherboardkii iyo random memory-gii iyo networking iyadana waynu ka hadli doonaa oo introduction aynu kusoo qaadan doonaa networking wuxuu yahay sidoo kale waxaanu ka hadli doonaa qaybaha kala duwan ee computer science-ka qaybihiisa kala duwan ayaynu iminka introduction ka bixinaa inagoo casharaan ka samayn doona markaa wiigiiba hal mar soo gelin doona haddii ilaahay idhaahdo markaa timetable baynu samayn doonaa marka timetable samayno casharaanta wiigii hal mar ayay soo duubi doonaa kadib waan idin soo dayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo sidoo kale waxaynu ka bixin doonaa introduction halka waxa ka muuqda waxa weeyaan waa resource performance monitoring qaybihii computerka weeyaan information halka waa system caseskii sidoo kale waxa weeyaan basic system
si aad u check garaysanayso problem haddii kaaga dhaco oo description-kii halkana software-radii oo halkan ka muuqda oo halkan waxaa ka muuqda software configuration iyo hardware configuration marka hardware waxa weeyaan CPU maxaa tahay CPU networking-kii iyo desktop ama diski waxa la yiraahdo iyo report statistics sida xisaabaad ku gudbiso report statistics-ka sidoo kale waxaynu eegi doonaa qaybta noqonaysa in software configuration-ka oo noqonaysa OS checking security central information iyo system in service iyo startup program iyo hardware configuration marka intaas halkan ka muuqda sidoo kale waxaynu eegi doonaa aynu ku soo qaadan doonaa qaybaheena computerka waxaanu ku soo qaadan doonaa waxa la yiraahdo monitoring tool-ku muxuu yahay monitoring tool halkan ka muuqda halka waa monitoring tool ayaa ka muuqda monitoring tool haddii aan ugu dhufano waa kan monitoring tool-kii performance monitoring sidoo kale waxaan eegnaa data collecting ama collector setup oo halkan ka muuqata haddii tahay system-kii hadday tahay events instructions-kii kala duwanaa iyo startup iyo users-kii loo isticmaalayay sidoo kale report-kii oo laba noqonaya oo noqonaya user iyo system labadaa noqonaya halkan oo kale performance baa ku qoran oo waa kan oo ku halkan ka muuqda isagana xisaabaadka halkan ka muuqda weeyaan oo iyagana aynu ka bixin doonaa information ka bixin doono sida halka ka muuqata oo kuwa marka halka waxa ka muuqda waxa weeye memory networking physical disk process information on interrupt time iyo break status marka dhammaan casharaanta waxaanu ka dhignay imika introduction amba qaab overview ayaynu ka dhignay oo waxaanu ka bixinay casharaanta overview ka bixinay laakiin sida uu u shaqeeyo computer science-ku timetable baan samayn doonaa insha Allah kanaalkiina may soo gelin doonaa kadibna week hal mar ayaan soo gudbin doonaa hadii la yiraahdo amba week hal mar baan soo deyn doonaa hadii la gaarsiiyo marka la socod wanaagsan intaas in ku soo gabagabeynay marka introduction-keena casharaanta computer science-ka aynu ka bixinay overview ka bixinay marka waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.